Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaal. Adduunkan aan joogno waxaa horteen imaaday oo tegay balaayiin dad ah. Innaguna waxaan joognaa maanta, barina waan ognahay inaan hooyanayno. Waxaana hubaalaa kuwa inaga dambeeyana inay iyaguna galbanayaan. Intaa markaan ka gudbo, cimriga Ilaahay ayaa bixiya, balse inta aan ku guda jirno nolosheenna ayaa ah waxa ina asteeya. Maalinta ay neeftu ka joogsato ee loo dareero gudgelintaada ayay ku bilaamaysaa inay ummaddu ku suntaan oo ay kugu suntaan laba mid un. Inay dhahaan alxamdulillaah, Ilaahay ayaana dhaafiyey, wuxuu nagu hayay dhib, wuuna dhici jiray, wuuna xirxiri jiray, naxariis ma lahayn, fasahaad ayuu ummadda iyo bulshada ku dhex waday iyo waxyaabo la mid ah. Ilaahay nagama dhiga kuwaas saa lagu hasteeyo, iyo inay yidhaahdaan innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Wuxuu ahaa insaan saamax iyo samir badan, ummaddana u naxariista. Wuxuu ahaa mid manfac u leh ummadda oo dhisay ceelal, masaajido, iskuullo, wuxuuna quudin jiray agoonta iyo dadka danyarta ah. Labaduba waa geeri, laakiin way kala qurux badan yihiin. Doorashada midkaad noqonaysana waa mid adiga kugu xidhan. Nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey, ummadda yaa ugu khayr badan nebi allow? Wuxuuna ku jawaabay, midka ugu manfac iyo faa'iido badan ummadda ayaa ugu khayr badan. Taariikhdu waxay xustaa ummado inaga horreeyey astaantay ka tageen, qaar ay madow ku lifaaqan tahay taariikhdooda, iyo kuwo lagu xasuusto wanaag iyo waxtar. Ha dooran inuu magacaagu ku lifaaqmo xumaan, ee u gunto sidii aad uga tegi lahayd astaan wanaagsan oo ummadda kaa dambayso ay ku naaloodaan intay doontaba ha leekaatee. Noloshan kooban ha ku khasaarinin inaad dhibaato iyo hagardaamo u geysato ummadda. Hana noqon mid hanyar oo aan aaminsanayn naftiisa, geeridiisuna la dareemin, balse noqo mid ay indhihiisu qabtaan wanaagga. Ha ka fikirin oo keliya sideen hanti ku yeeshaa, balse sidoo kale ku hami sideen ummadda wax ugu qabtaa, sideen ummadda noloshooda wax uga beddelaa. raadsan reeb janno gale. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.